بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. درسي أنه حكب اللابنا يا آيات صدنية صدحات سورة آل عمران كمدة مناسبة دي ذوحة أي تهي إلهي سبحانه وتعالى إنو تلمامي دونه تاريخ دير أي أمة المسلم كأهي صوب مرتي يهجامياشي دينتان أهريي إلهي سيدو ودورتي إلهي وحولاه إن الله إلهي اصطفى ودورتي آدم أيو دورتي ونوحا ينوح وآل إبراهيم ددكيسي وآل عمران ددكيسي على العالمين مخلوقات كأيو كدورتي إلهي سبحانه وحاو دورتا قفكي او دونه او خير كوافجيا رسوش إلهي وحو كدورتا ددك دحدودا سيدا او ملائكة برسول او دورتو الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس marka dadka ilaahay uu doortay ee uu ku karaameeyay ee uu ku sharfay risaalada iyo nabinimada ayaan loo tilmaamayaa si dadkaas aan taariikhdoodan u baranno isla markaasna aan ugu dayano aan ogaano diinta aan haysanaay taariikh dheer inay leedahay oo dad qiimo badan inay nooga horeeyeen inaguna aan daba soconno marka inna allaha ilaahay istafa wuu doortay aadam ayuu doortay abul bashar bini aadamka oo dhan asay ka soo jeedaan inuu bini aadamka aabbo u noqdo nabi ilaahay inuu yahay qiimahaas iyo sharaftaas ilaahay ayaa la doonay oo nabi aadam doortay wa nuuxna wuu doortay oo asna rasuul ayuu ka dhigay nuuxna waa aabihii labaad ee bini aadamka abul bashar athani ayaa la yiraahdaa waana rasuulkii ugu horeeyay oo taariikhda la soo diro intii ka horeysay nabi aadam waqtigiisii dadku way iska fiicnaayeen wax qalooca ma jirin laakiin markii dambe ayay qalooc dadku soo galay oo asnaam ay caabudeen si asnaamtaas uga soo celiyo ayaa nabi nuuxna loo soo diray risaalada uu wadayna waa islaamnimadan ayay ahayd waxaana u daliila qowluhu tacaala markii uu dadkiisii si fiican muddo ula hadlay oo wax ugu sheegay oo diideen ayaa wuxuu ku yiri fa in tawallaytum fama sa'altukum alayhi min ajrin najri illa ala allahi wa umirtu an akuna min almuslimin muslimiinta ayaan kamid ahay marka doorashadaas ayuu ilaahay doortay oo rasuul ilaahay oo dadka inuu hanuuniyo loo soo diray ayuu nuuxna ahaa wa ala ibraahim dadkiisana ama ahalkiisana ayadana waa la doortay oo nabi aadam nabiyaal badan ayuu dhalay markaas waxaa la yiraahdaa abul anbiya ayaa la yiraahdaa khaliilur rahmaan ibraahim doorashadaasna ilaahay ayaa la jeclaaday oo sidaas ka dhigay wa ala ibraahimna ibraahim ehelkiisana ilaahay baa doortay oo risaalada ku doortay oo siiyay wa ala cimraan dadkiisana sidoo kale ayuu ilaahay u doortay cala alcaalamiina makhluuqaadka ayuu ka doortay dhurriyatan ba'daha min ba'din dhurriyatan xaal ay yihiin farac ba'daha qaarkeed min ba'din qaarka kale ka ahaatay dadkan la doortay ee la soo sheegay abtirkoodu wuu ismaraa oo yaani asal iyo farac ay isu yihiin nabi aadam ayaa ugu weyn oo bin aadamka oo dhan ay ku abtirsadaan nabi nuux ayaa ku soo xiga sidaasuu nabi ibraahimna sidoo kale ujidkaas nabi nuux iyo awlaadiisii uu yahay nabi ibraahimna waxa ka sii farcamay nabiyo kale marka usradaasi oo nabinimada ahi iyo doorashada ilaahay uu doortay waa awlaad yaani ama waa farac isdhalay oo isku abtirsada marka dhurriyatan caruur ama farac ba'daha qaarkeed min ba'din qaarka kale oo ka ahaaday ayayna ahaadeen dadkaas hadaan soo sheegnay oo nabi aadam iyo nabi nuux iyo nabi ibraahim iyo la soo tilmaamay yaani nabi aadam asagu waa ugu horeyntii waa aabihi bin aadamka oo dhan yaani way ka soo farcameen inta ka dambeysay qaar bay sii dhalaayeen saasay maxay waxay ku yihiin dhurriyatan farac ama caruur ba'daha qaarkeed min ba'din qaarka kale oo ka ahaaday isa sii dhaldhalay wallahu ilaahi samiicun alla maqlo caliimun cilmi badan ayuu ahaaday id qaalat imra'atu cimraan rabbi innii nadartu laka ma fi batni halkan waxaa laga gelayaa yaani nimankan la yiraahdo nasaarada ama kirishtaanka yaani nabi ciise way ku fidnoobeen habka uu dhashay maadaama uu ka duwan yahay habka ay dadku u dhalan jireen oo dadku waxay ku dhashaan inay aabbo iyo hooyo leeyihiin marka nabi ciise maadaama uu hooyo kaliya leeyahay oo aabbo uusan lahayn ayaa waxay u qaateen aabbahani inuu yahay ilaahay markaas waxay dhaheen nabi ciise ilaahay ayaa dhalay marka sidaas fidnadaas ay galeen si looga celiyo yaa ilaahay subxaanahu quraanka wuxuu ku tilmaamayaa qoyska nabi ciise ee yaani hooyadii meesha ay ka soo jeedo iyo sida ay hooyadii u barakaysan tahay
barakadaas hooyada ay barakaysan tahay inuu asna ilaahay uu kusii barakeeyo oo uu sii siiyey qoyska marka inuu yani sida uu yahay iyo taariikhdii lasoo maray iyo meesha ay kasoo bilowdeen yani si kuwaan yani ku fidnoobay nabi ciise ay u bartaan taariikhdiisa isla markaasna waxa ay u nisbaynayaan ee aan sax ahayn ay uga joogaan marka waxaa la id qaalat imra'atu cimraana id waqti xus oo dadka u sheeg nabiyow qaalat ay tiri imra'atu cimraana cimraan xaaskiisii macnaa waa nabi ciise hooyadii ayaa hadda soo socoto markay dhalanaysay iyo taariikhdeeda la xusaaya inta aynan dhalanin yani qoyskan ay kasoo jeedo nabi ciise hooyadii yani taariikhdoodii iyo sida ay ahaayeen id waqti qaalad ay tiri imra'atu cimraana cimraan xaaskiisii waa nabi ciise hooyadii hooyadeed id qaalat imra'atu cimraana ay tiri rabbigayow inii anigu nadartu waxaan kuugu nadray laka adiga inii anigu nadartu waxaan kuugu nadray nadarku wuxuu yahay yani shay qofka uu ilaahay yani uu u ballan qaadaayo oo uu dhahayo ilaahay haddii arrintaas aan helo waxaan ballan qaadaya daraadda inaan waxaas u sameeyo yaa gabadhan oo uu qabo yani cimraan oo nabi ciise hooyadii dhashay yaa intayna nabi ciise hooyadii dhalin oo yani caloosha ay ku jirto nabi ciise hooyadii oo maryamo ah yaa ilaahay waxay ugu sii nadartay ilmaha ay dhali doonto in ay ilaahay daraaddiis yani intay u barbaariso yani shaqada ay u diri doontana uu khidmo uu ka qabanayo beytka ilaahay in arrintaasi ay noqoto marka qalbi wanaageeda shay ayna haysanin ikhlaaska ku jira daraaddii ayaa waxay jeclaysatay ilmahan ay dhali doonto inuu qof khaadim ah oo beytka ilaahay ka khidmeeya inuu noqdo markay taas ku nadraysay oo ilaahay ay sharad kula gelaysay bal nabi ow dadka u sheeg oo uga sheekee oo ay tiri inii nadartu waxaan ku nadray laka adiga maa fii badni calooshayda wixii ku jira muxararan xaal u yahay mid la xoreeyey oo adiga laguu xoreeyey oo hawl kale aan loo dirsanayninoo beydkaaga inuu ka shaqeeyo oo keli ah loo diyaariyo ayaan ilaahay kuugu nadray waxaan kuugu nadray maa fii badni calooshayda wixii ku sugan muxararan isagoo la xoreeyey oo adiga laguu xoreeyey oo inuu ka khidmeeyo beydkaaga loogu talagalay fataqabal minii ilaahay arrinkaas iga aqbal innaka adigu anta adigu assamiicu alla maqal badan alcaliim oo cilmi badan ayaa tahay ilaahay oo ilmaha ii dhalan doona ayaa waxaan ku nadray inaan adiga kuu gaar yeelo oon kuu xoreeyo oo shaqooyin kale aana u dirsanin oo adiga keli a ku yani kuu xoraysnaado oo beydkaaga uu ka khidmeeye weli imuuna dhalina calooshuu ku jiraaye yani niyaddaas daraaddeed ilmahaas inaan adiga ilaahay kuu xoreeyo oo beydkaaga uu ka shaqeeyaan rabaaye ilaahay camalkaas soo socda ee aan qaban doono ilaahay iga aqbal innaka anta adigu waxaa tahay assamiicu alla maqlo alcaliimu cilmi badan sidaasay ku nadartay waxay ballan ku qaaday ilmaha ay dhali doonto in markii uu weynaado khaadim uu ka noqon doono beytka ilaahay iyo meesha alla lagu caabudo falamaa wadacathaa markii ay dhashay qaalad waxay tihi imra'atu cimraan xaaskii cimraan uu qabay waxay tihi rabbigayow inii anigu wadactuhaa waan dhalay unthaa ayadoo dhadig ah wallahu ilaahay aclam wuu ogyahay bimaa wadacad waxa ay dhashay ilaahay wuu ogyahay oo hadda in ilaahay ay uga warbixiso u sheegto yani ma aha oo hadda uma sheegayso ilahayna wuu ogyahay laakiin waxay arrintii waxay yani muujinaysaa ballanqaadkii hore ee u samaysay oo ahaa beytka ilaahay in laga khidmeeyo yani ballantii yani sida ay noqotay iyo arrinta dhacday inay gabar ay dhashay falamaa wadacathaa markii ay dhashay qaalad waxay tidhi rabbigayow inii wadactuhaa waan dhalay unthaa ayada oo dhadig ah wallahu aclam bimaa wadacat ilaahay wuu ogyahay waxa ay dhashay walaysa dakaru labkuna ma ahaanin kal unthaa dhadiga oo kale ma ahaanin yani markii beytkaaga laga khidmaynaayo sida uu wiil uga shaqayn karo masaajid gabari ugama shaqayn karto maxaa yeelay gabarta waxaa soo marta xilliyo yani masaajidkaba ayna soo geli karin oo macduur ay ka tahay xilliyada maalan dhiig uu ku dhaco oo kale masaajidka ma soo gelayso marka haddii gabar la yidhahdo masaajidkaa ka khidmayso yani inta maalmood ee yani macduurka ay tahay ee ay ku jirto dawla shahriyada masaajidkii yani hawshiisii ayaa xayarmaysa ayaduna waxay ku nadartay oo ay rabtay wax caloosheeda ku jira intuu wiil noqdo wiil 24 saac iyo waqti uu ka maqnaanayo masaajid ayna jirin waqti walba oo u baahdo inuu hawl ka qabto ka qaban kara in la siiyo markay gabar noqotay ayaa waxay muujinaysaa dareenkeeda ah ilaahay waxaan rabay beydkaaga in yani mar walba laga shaqeeyo hase yeeshee gabar ayaan dhalay gabadhuna khidmada ama hawsha ay ka qabanayso masaajidka lama mid aha midda uu wiilku ka qaban kari lahaa marka waxaa la walaysa dakaru labku ma uusan ahaanin kal unthaa dhadiga
lama mid aha yani labku sida uu masaajidka uga khidmayn karo ee uu fursad ugu heli karo ee uu mar walba usoo geli karo yani gabdhuhu sidaas maahna marxalad waxaa jirta ama marar waxaa jirta yani ayna soo gelaynin oo macduur ay yihiin marka haddii arrintii gabar ay iga noqotay beydkaagiina aan horey ugu xoreeyey anu kamaana bixin arrinkii sidii unba ii ahayde laakiin arrintan ayaa dhacday marka gabadhaas ayaan dhalay marka khidmadii badnayd ee masaajidka ay ka qaban lahayd hadday qaban weyso yani waa wax yani ka imaaday hab abuuritaanka ay u abuuran tahay wax anigu aan ka joojiyay ilaahay ma aha maxaa yeelay wiil ayaa arrintaas hawshaas u istaagnaan kara mar walba walaysa dakaru kal untaa muusan ahan wa innii samaytuhaa waxaan ku magacaabay gabadha maryama ayaan ku magacaabay magacii ay u bixisay ayay tilmaamaysaa marka gabadhan maryama la yidhahdo ee nabi ciise dhali doonta yani sida ay ku dhalatay ayaaba waxay ahayd yani shay cibaado loogu talagalay oo qoys barakaysan oo ahludiin ah ayay ka soo jeedaa marka iyadoo aan weli dhalaninba ayaa waxaa loo sii diyaariyey inay diinta ilaahay anfacdo meydka ilahayna ka khidmayso laakiin khidmadii oo dhammaystirnayd ma ayna gaarin oo maadaama gabar ay tahay sida wiil uu masaajid uga shaqeeyo kale ugama shaqayn karaynin marka magacii ay u bixisay ayay tilmaamaysaa iyo duca ay u ducaynaysa gabadheeda waxay tiri wa innii anigu samaytuhaa waxaan ku magacaabay maryama ayaan ku magacaabay oo magaceeda waxaan u bixiyay maryamo wa innii aniga uciiduhaa waxaan magan gelinayaa bika adiga iyo wadurriyataha iyo ubadkeedaba waxaan kaa magan gelinayaa ilaahayow min ashaydaani shaydaankii alrajiimi ee la dheereeyey oo naxariista ilaahay laga fogeeyey ayaan ilaahayow ayada iyo ubadka ay dhali doontaba ilaahayow shaydaan yuusan usoo dhowaanin marka nabi ciise ducadaas ayuu helay oo yani hooyadii oo maryamo ah iyo ubadkeeda ay yani iman doono oo nabi ciise yani ay dhali doonto ayaa horay waxaa ilaahay looga sii magangeliyey shaydaan inuusan usoo dhowaanin marka waxay ku tiri ilaahayow waxaan kaa magangeliyey yani ayada wa innii uciiduhaa waan magangelinaya bika adiga iyo adiga waxaan ka ayada iyo wadurriyataha iyo ubadkeedaba min ashaydaani alrajiimi shaydaanka la dheereeyey ayaan ilaahay kaa magangelinayaa ee badbaadi fataqabalahaa wuu ka aqbalay rabbuhaa rabbigeedu biqabuulin aqbalitaan xasanin oo wanaagsan ayuu ka aqbalay markii ilaahay ay nadar la gashay oo ay tiri ilaahayow waa adaan kuu xoreeyey ilmahaan dhali doono si uu beydkaaga uga khidmeeyo niyadaas wanaagsan ilmihii oo ayna dhalinba ayaa waxaa laga soo qaaday sidii ayada oo arrintii ay raadinaysay oo beydka ilahay in laga khidmeeyo ah ayadoo qabatay oo kale ajirkaas oo kale ayay leedahay maxaa yeelay qofku haddii niyadiisu ay ficnaato oo wixii ilaahay uu rabo inuu yani ugu dhowaado ay niyad ahaan ka soo go'do waxay la mid tahay sidaas oo qabtay oo kale ajir ayaa loo qorayaa marka maadaama ay ilaahay dartii ay u xoraysay ilmaheeda ayadoo ilmihiiba una dhalaninba ilaahay wuxuu ka aqbalay arrintaas iyada fataqabalahaa rabbuhaa biqabuulin xasanin iyo middan kale oo ah mathalan ilaahay carruurtayda gabadheedan maryamo ah iyo ilmaha ay dhali doonto shaydaanka ilaahay uu ka ilaaliyey tiina waa laga aqbalay maryamana shaydaan uma soo dhowaanayo wiilkeeda oo nabi ciisaana shaydaan uma soo dhowaanayo fataqabalahaa wuu aqbalay rabbuhaa rabbigeed biqabuulin xasanin aqbal wanaagsan ayuu ka aqbalay wa ambatahaa waxaa koriyey nabaatan xasanan korin wanaagsan ayuu koriyey yani wuu barbaariyey nabaadku waa dhirta geedku markuu yar yahay oo dhulka uu ka soo baxo koriin ayuu u baahan yahay wuu yar yahay wuu soo kobcaa kor ayuu usoo kacaa geed weyn ayuu noqdaa insaankuna waa saas oo kale asagoo dhiflan ilmo yar ayuu dhalanayaa wuu soo weynaanayaa dhalinyaruu noqonayaa kabacdina wuu weynaanaya duq ayuu noqonayaa marka ilaahay subxaana wuu barbaariyey gabadhii maryamo ahayd barbaarin wanaagsan sida dhirta loo barbaariyo oo geedka loo kobciyo oo biyo loo siiyo ayuu ilaahay gabadhaan yani ugu barwaaqeeyey oo korin wanaagsan ayuu u sahlay wa ambatahaa wuu dhaliyey macnahedu waxay tahay wuu barbaariyey wuu koriyey nabaatan xasanan barbaarin wanaagsan ayuu barbaariyey wa kafalahaa waxaa kafaalo qaaday zakariya nebi zakariya ayaa kafaalo qaaday gabadhan yarta ah yani kafaalaqaadku waa dhaqaalayn iyo qofka oo gacanta lagu haayo oo wixii u baahdo loo fuudeeyo marka gabadhan maryamo ah raashinkeeda iyo waxay u baahan tahay xilkaasi waxaa qaaday nebi zakariya habka uu ku qaadayna si qorituur ahoo nasiib ah ayuu ku qaaday maxaa yeele waa gabar barakaysan marka asaga ayaa ilaahay fursad u siiyey inuu asaga uu koriyo oo nabigaas ayaa kafaalo qaaday wakafalaha zakariya ayaa wakafalaha zakariya ama wakafalaha wuxuu kafaalo qaadsiiyey zakariya ayuu kafaalo qaadsiiyey haddii la fuudeeyo haddii la adkeeyo laba macnay leedahay oo yani marna la yidhaahdo wakafalaha zakariya ama wakafalaha zakariya yani ilaahay wuxuu kafaalo qaadsiiyey oo ku ilhaamiyey oo u sahlay zakariya ama zakariya kafaalo qaaday
كلما دخل عليها زكريا المحراب مركو كفالة قال أقول سوء نبي زكريا وحكو أركي كراموين وحيابو يعني قبض عن إلهي وكو كرامي أو دتك كلا أين هيسنين أيوكو أركي كرامتنا دتك صالحين تا دتك وناكسني وحيابو دتك يعني لغو تصيو يعني إلهي أود ديسة مرة قاركود إن لقى ظاهرية ويدعي كرتا لكن كرامتها سمعناها يضو معها قفك إلهي أو شرفي كرامته أوسيي إنه أصوح بحين كرا أما دتك وحسين كرا معناها هذا معها إلهي مركو كرامتي قفك أو تقوى يا لك عبسي أو كسيي خير كاسي دتك إنه يكفى إليسانه إلهي يكو أقنصانه إلهي يكو حسانه إلهي يعني تقويس يكو زيادان سي أيونا كرامة أوسيو روحي كرامته أي كظاهرتي معناها هذا معها إنه دتك معناها ضر النعف وهايو مرة كرامتي جواد عس إلهي يكو كرامي أوسيي حاكم ذها كلما دخل مر الله مركو أصوغل عليها كركة زكريا نبي زكريا المحرابة ماشي العبادة سنة مال ير أو داش أو محرابة أيو أدسي جوار عبادة بدن أي أهل جوار أس مريم أو نبي عيسى هو يدي مركز ماشي هذا أي كل عبادة ستة محراب كع محرابكم حال جال هذا ماشي مثلا إمامكم مركو ذاتك صلاة كبحين هايو أو قال أيام محراب لي هذا مال مركز سلاس أو كلا هو كل عبادة ستة أو قارة أي إلهي مريم مركز ماشي صار راشين كالله كنا halkaas ilaahay ku caabudaa waa gabadhaas taqiyada ah marka zakariya nabi zakariya markuu u soo qaado raashinka oo uu meesha ay ku jirtay ku cibaadeysanayso oo ugu yimaado wixii uu ku arki jiray maryama agteeda ayuu quraanku inoo tilmaamaya kullama dakhala mar alla markuu u soo galo caliya korkeeda zakariya nabi zakariya al-mihraba meesha ay ku cibaadeysanayso markii uu soo galaba wajada wuxuu helaa cindaha agteeda rizqan raashin ayuu ku arkaa raashin markii hore aan meesha oolin xilliga markaas la joogana yani aan la helaynin oo xilliyada مثلا يعني waxa jirta qudaarta oo kale xilli ay soo goodo iyo xilli ay macduum tahay oo xilligeedii aan la joogin raashin markaas asaga xilligiisii aan la joogin magaaladan aan laga helin asaguna uuna u keenin oo raashinkii uu keenay aan kamid ahayn ayaa markuu raashin u keenaba wuxuu ku arkaa wax ka dheeri ah wax noociisu uu ka duwan yahay oo gabadha agteeda yaala wajada wuxuu helaa cinda agteeda rizqi ayuu ka helaa aan meesha asaguna keenin markaasna mid ilaahay aan ahayn ayuu maryam agteeda ku arkaa waa karaamo yaa keenay rizqigan meesha la soo dhigaayo nabi zakariya ka faarqaday ma keenay rizqigan yaa meesha ku soo diyaariyay meeshan soo dhigay marka uu arkay agteeda uu ku arkay rizqan su'aal ayuu weydiiyay qaala wuxuu yiri yaa maryanay anna laki hada halkeebu arrinkan kaaga ahaaday raashinkan agtaada mar walba aan ku imaado aan ugu imaanayo anigu kuuma keenin cideebaa ku keentay يا مريم أنا لك هالكيبو كاغا هذا كان رزقان أنا كو كينيني أكتا ذيالا كرامة إلهي أقارك كوسي حاجاتك كنت بي أنا لك هذا أرهكن حقو كاغا إماضي قالت مريم حيث هو أصغو من عند الله إلهي أكتسو كأهاضي يعني رزقان أذر كيسي راشين كان أذر كيسي عد بني آدم أو انت البابك إيقصو قشي راشين كان إيه كنت مجرتو أصغو ماشي يالون بان أركام إلهي مركو وحسمين عينا يعني إلهي عدو كلا تشان مالي أوديسو وواسع ماشي أنه يسكى الصعودي راشين محايا الأمر كيسو إنما أمره إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون أهو أمبورها يوون إسكاهانا عياي مركا قالوا حيكوتر هو أصبو من عند الله إلهي أكتيسة أيو كأهد يرزق كان إلهي إيا توس إيو كان يعني هل كان أصبو يالون بان أركا عد كرو إيه كانتي أو إلهي أنا هين مجرد إلهي بأسيي محايا إن الله إلهي يرزقه رزق سيا من يشاء قفكو دونه بغير حساب الآن أيوه حسكسية إلهي مركو دادكو حسينا أيو وما بيغو إن يتان يرقى إن كانوا يكون لمنتهي معه سيدو إلهي أسيو وسيئاد واسعوا سيدو أصبابته أسينا أساق أيها يقانا هدو دونا أصاب أسو مرسينين أيوه ماشي اسكسو لغايا إن الله إلهي يرزق من يشاء قفكو دونه رزق سيا بغير حساب الآن أيوه رزق سيا هنالك دعا زكريا ربه نبي زكريا ومركز عرور أباهنا ayaa markuu arkay ilaahay suu wax u bixinaayo oo gabadhan yaani uu risqiga u siinaayo asbaabta markaasi yaani la yaqaanayna ay arintu ka baxsan tahay yaa wuxuu rabaa ilaahayga sidaan risqiga u keenay asbaab la yaqaano oo dadku ay garanayaan oo hadda meesha taala oo risqigan ku yimid aysan jirin asaguna dhanka kale ubad ayuu u baahan yahay caruur ayuu rabaa xaaskiisu ma dhasho asagu waa da caruur la'aan ayaa haysa marka ilaahay inuu yaani asbaabtii intuu diyaariyo oo ilmo uu siiyo inuu heli karo ayuu og yahay marka laakiin tanbiih ama baraarujin waxa uu noqotay risqigan maryama agteeda yaala oo cid keentay oo kale aysan jirin ee ilaahay inuu siiyay ayuu ku baraarugay marka inuu ilaahay ubad siiyo ayuu ilaahay ka baryaaya maxaa yeelay kelinimadka
ayuu aad u dhibsaday maxaa yeelay diintan hadda uu wado haddii yani uu ka dhinto qof uu ku aamino oo sii wado ayuu u baahan yahay waatuu ku ducaysay rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaarihiin ilaahay ow kelinimaha igaga tegin ilaahay ow ilma isii ayuu ku ducaysan jiray arrintan marka maryamo wuxuu kaga faa'iidaystay dareen ah ilaahay haddii uu baryo isla markii inuu siinaayo asbaabtan waa la duqoobay ahna ilaahay agtiisa markuu dadka wax siinaayo inayna waxbaba ku fadhininba maxaa yeelay in allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab xisaab laan ayuu iska siinayaa sida maryamo uu raashin isaga siiyey nabi zakariyana carruur wuu u siin karaa marka hunaalika meeshaasaa dacaa zakariya uu baryey rabbahu rabbigii ayuu baryey rabbi ayuu duco ayuu la jeestay hunaalika meeshaas markuu maryamo arkay risqiga sida loo siiyey hunaalika meeshaasaa dacaa zakariya rabbahu rabbigii ayuu baryey qaala wuxuu rabbi rabbigayow hablii ii hibee min ladunka agtaada dhurriyatan tayibatan wuxuu ilaahayow rabbigayow hablii isii min ladunka agtaada dhurriyatan carruur dayibatan oo wanaagsan ilaahayow carruur un isii arrinku ma ahee ilaahayow carruur wanaagsan isii maxaa yeelay carruurtu haddii ayna wanaagsanayn waalidkana culays iyo dhib ayay ku tahay waddankana culays iyo dhib ayay ku yihiin bulshadana culays iyo dhib ayay ku yihiin laakiin haddii ilmuhu ay wanaagsanaadaan waalidkana khayr iyo barako iyo fudeed ayay u yihiin waddanka iyo bulshadiina sidoo kale ayay u yihiin markii ilaahay carruur laga baryaayo yaan carruur keliya la dhihine carruur wanaagsan oo ilaahay caabuda oo tarbiyaysan oo dadkooda iyo dalkooda anfacda ilahay in laga baryo nebi zakariya ayaan ka baranaynaa waa ka wuxuu leeyahay rabbi hablii isii min ladunka agtaada dhurriyatan carruur dayibatan oo wanaagsan innaka adigu samiicu ducaa'i ducada waad maqashaaye ilaahay haddii lagu baryo baryada waad ajiibtaaye ilaahay oo carruur isii oo wanaagsan ducadaas markuu ku ducaysay ilaahay wuu ka aqbalay isla markiiba waxaa loo soo diray bishaaradii inuu ilmo heli doono ah fanaadathu lmalaa'ikatu fanaadathu waxaa u dhawaaqday nebi zakariye almalaa'ikatu malaa'igtii ayaa u naadisay wa huwa isaga oo qaa'imun taagan yusalli isagoo tukanaya fi lmixraabi mixraabka isagoo ku tukanaya yani malaa'ig ayaa ilaahay usoo diray markaasay la hadleen fanaadathu lmalaa'ikatu malaa'igta ayaa u naadisay ama u dhawaaqday wa huwa isagoo qaa'imun taagan oo yusalli tukanaya fi lmixraabi mixraabka ku tukanaya waxay ku yidhahdeen malaa'igtu bishaarada ay u wadeen waxay ahayd ana allaha ilaahay yubashiruka wuxuu kuugu bishaaraynayaa biyaxyaa yaxya ayuu kuugu bishaaraynayaa musadiqan xaal uu yahay kii rumaysan bikelimatin kelimad oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa sayidan asaga oo sayid ah wa xasuuran asaga oo la reebay ama la shiray oo xumaatada laga xayiray ama laga reebay wa nebiyan asaga oo nabi ahoo min asaalixiina dadka suusuuban ka mid ah ayaa lagugu bishaareeyey ducadii sida loo aqbalay dhurriyatan dayibatan carruur wanaagsantii natiijadeedu saasay noqotay in la yidhi ana allaha ilaahay yubashiruka wuxuu kuugu bishaaraynayaa biyaxyaa wiil magaciisa yaxya la yidhaahdo ayuu ilaahay kuugu bishaaraynayaa wiilkii ayaa lasii ammaanay oo waxa uu noqon doono ilaan carruur fiican ayuu ilaahay weydiistee inuu fiican yahay iyo tilmaamaha uu ku fiican yahay ayaa lasii galay waxaa la yidhi yaxyahaas lagugu bishaaraynaayo wuxuu noqonayaa ama uu yahay musadiqan xaaluu yahay kii rumaynaya bikelimatin kelimad oo min allahi ilahay xaggiisa ka ahaatay kelimooyinka ilahay xaggiisa ka yimid wax alla wixii ay tahay in la rumeeyo oo ilaahay addoomihiisu inay rumeeyaan uu faray wuu rumaynayaa musadiqan bikelimatin min allah ilahay wuxuu kugu bishaaraya yaxye musadiqan bikelimatin min allah asaga oo rumayn u ah kelimad ilahay xaggiisa ka ahaatay wa sayidan asaga oo sayid ah sayidku waa hogaanka ummadda horjoogaha u ah ee dadka ururiya ee qoomku ay ku kalsoon yihiin ee mashaakiloodkooda u xalliya ee yani hogaanka u ah asagoo marka hogaamiye ah oo qoomkaasi sayid u ah ayaan yani kugu bishaaraynaynaa wa xasuuran asaga oo la reebay ama la shiray yani xasuurku yani xumaatada ayaa laga celiyey oo qof xumaato u hanqaltaagaya ama xumaan u socdaay ma aha waa xasuuran mid la reebay la xabisay xumaatada laga xabisay wa nebiyan nabi asagoo min asaalixiina dadka wanaagsanna ka mid ah ayaa lagugu bishaareeyey nabigii markii bishaaradaas uu maqlay waktiga ay imaanayso ama calaamadaha lagu garanaayo in wiilkaasi caloosha uu galay si uu ugu sii farxo ayuu ilaahay haddana duca ula jeestay qaala wuxuu yihi nebi zakariye rabbigayow annaa yakunu lii sidee buu iigu sugnaanayaa ghulaamun wiil waqad balaqanii isagoo i gaaray alkibaru duqnimo ama da ayadoo ay i gaartay oo da'nimo asiibtay wamra'atii xaaskayguna caaqirun ma dhalays ay tahay yani asbaabta ay say ku dhoqon kartaa
معناها إنه ديدن يهي المه لوجو بشارية معناها هذا معه يعني وسوق لا فرحة أنت كتبلتي يوحول إلهي يو لوقف أو وين أو دقوبي أو حلقي وحلا دلي جري يعني طافي كل أبو واحد بلن قاد وادكيني ساي سيدا أرنتاس أي كود عايسو إففاله هذا بالإسي ساي كود عايسا ربي يو أن يكون لي سيدا أبو يقصنانا يا غلام ويل سيدوب يقصنانا يا وقد بلغني الكبر الدقن ما أيضا إتابتي وامرأتي حاسك يقول عاقر المردشة أيتاي قال وحويري ملكي أبشاريناي كذلك الله كذلك سداس الله أي فعل الله ذلك سداس أي أرنكو أهاضي قال الأمر كذلك مركو يري نبي زكريا سيبان الماء كهلايا دق أيابنا يحاسك يقول مردشة قال وحال يري كذلك الأمر أرنكو كذلك وسداس سيد إلهي وأشيغي إن الماء كسينايو أرنكاسي كنقشم ماله وسدو إلهي أيري سيد أو كوكيناي سببتنا أستغى أيها يقان إلهي أودي سنو ويوينتهي كذلك الأمر كذلك أرنك واسداس الله إلهي يفعل وحو سمايا ما يشاء وحو دونه قال وحو نبي زكريا رب اليوم اجعل لي إيا الهدباء آية علامات أنكو قرطو إسلام تايدو إني أور ليضاهي إلهي وإيشاك مرك قرطي إلهي سوى سمين آيه وحو بل إنو سمين كرئ سيان وغسي فرحو ونوغ هذا إسلام تو إني أور ليضاهي calaamadaha haddii aan ku arko aan fahmaayo bishaaradii inay dhabowday ilaahay aan ku sii farxay bal ii sheeg qaal wuxuu rabbigayow ijcal lii iyal aayatan aayad iyal calaamad aan ku garto uurkeeda ilaahay uu ii samee qaala ilaahay wuxuu yiri aayatuka calaamada aad ku garanaysid islaantaadu inay uur leedahay wa allah tukallima naasa dadka inaadan la hadlin 3 ayaamin 3 maalmood ilaa ramzan tilmaan ma ogi yani waxa calaamad ku ah adiga oo friyo oo caafimaad qaba inaad afreebato oo hadalkuba uu ka soo bixi waayo muddo 3 maalmood ah hadii lagu la hadlo awood aad hadal ku celiso malihid wixii marka aad u baahato oo waxaas ii keena ama waxaas muxuu yahay fartum baad ku fiiqi sidii qof dhagoole oo kale ayaad un tilmaamayna afkaaga inaad ka hadashid oo tiraado waxaasaan u baahanahay ayaa laga xiriira maalinka aad aragto in afkaaga uu xiriiran yahay oo hadalkii uu ku dhibaayo hadalkii uu ka soo baxaynin ogo wiil ayaa caloosha ku galay oo sidaas aad marka bishaaradii adxaaskaaga ka suugaysay in ilmo ku dhasho halkaas ayaad ka heshay marka calaamad ku ah allah tukallima naas dadka inaadan la hadlin 3 ayaamin 3 maalmood ilaa ramzan tilmaan inaad kula hadasho moogi hadii calaamadaas aad aragto marka ogaatay islaantaada inay uur leedahay oo uurka aad suugaysay heshay waxa laga rabaa marka mahad celin ilmuhu waa nicmo ilaahay dadka uu siiyo qof awoodiisa ku samaysan kara male ilaahay ayaa ilmaha abuura marka nicmadaas la isa siiyay in laga mahad celiyaa la rabaa هاي مركب واذكر ربك حس كثيرا إن بدن وصبح التسبيحسو بالعشي قلبتي يوال إبكار إيا الصبح دي يعني مركب إساس كود عضو ذكري أسوه كفرية كامحرنا سبحان الله الحمد لله الله أكبر أذكار صباح مساء صبح إيا قلب مركب واذكر ربك حس كثيرا إن بدن وصبح التسبيحسو بالعشي قلبتي يوال إبكار إيا الصبح دي إلهي التسبيحسو وقمهد علي إنه إلهي المكسيي سداسنا أوهو marka nabi zakariyana sidaas loogu bishaareeyay oo ilmo ku helay ducadiisa ilaahay ku aqbalay barakadii gabadhii maryama ahayd ee uu soo koriyay khayrkeedina oo helay ilhaamna ay u ahayd oo kaga saamiyay markuu arkay barakada ilaahay uu siiyay sidaas waxa la rabaa wixii khayraada oo la arko in la isaga daydo qofku ilaahay uga dhow yahay inuu yaani u dhawaado oo uu yaani kaga daydo khayraadka si khayrkan iyo barakadan qofkan ilaahay uu siiyay asna uu siiyo درسنا ما أنت شو كوجهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.